waan idin salaamayaa waxaan idinka mahad celinayaa booqashada aan ugu timaadeen xafiiska waxaan doonayaa laba arrimood inaan ummadda u sheego mid waxa weeye abdhaqanka shanta maalmood ee xisbiga u hadhay aan u qorsheynay berrito oo 29 ah oo xisbigu leeyahay isu soo bixii dalka oo dhan waanu joojinay annagoo duruufo badan eegayna waxaana loo bedelay hawlo samafala oo gobolladoo dhan laga qaban doono samafalkaasi suu noqonayaa guddi baa ku maqan wuxuu noqon doonaa uun dadka jilicsan ee tabaalaysan cusbitaalada TB-da cusbitaalada dhimarka aduu dadka tabaalaysan in dhakhtarka in mucaawino loo geeyo oo nu ku bedelo isu soo bixii annagoo u tudhayna hawsha xoogga leh ee dadka ku dhacaysa iyo qoysaskaba waxa kaloo xisbigu leeyahay bisha kowdeedana xisbiga leh October November kowdeedana xisbiga leh maalinta iyadoo isu soo bax dalka oo dhana bisha afarteeda November oo haddana xisbigu leeyahay iyana waxaanu ka dhignay samafal kii hore la mid ah oo la baahiyo gobollada dalka oo dhan iyo meelihii degmo doorashooyinka waaweyn laga gaadho waxa ku xigta bisha 7deeda ayaama xisbigu leeyahay 7 November iyada waa isu soo bax 10 oo xisbigu soo khatimayana iyana waa isu soo bax intaa waxa dheer gudoomiyuhu imika wuxuu soo maray 2 gobol uu ka bilaabay Maroodi Jeex awdal buu ku xigsiiyay imikana wuxuu baxayaa saaxil shanta gobol ee hadhay saaxilka uu ka tahay uu gudoomiyuhu markuu ku soo beegmo iyaga raaliba waxa ka dhacaya isu soo bax oo ka dhici doona saaxil oo bariya togdheer burco laascaanood iyo Cerigabo maalmaha uu ku beegan yahay gudoomiyuhu madaxyada gobollada hadhay caasimadahooda xisbigu wuxuu isla qaatay in banaanbax iyo isu soo bax laga dhigo taasi waa ta kale waxay ummadoo dhan u dhig taagaysaa dhacdadii xalay ka dhacday guriga gudoomiyaha nasiib wanaag gudoomiyuhu muu joogin hawl buu ku jiray iyo shirar sidanu xogsanay booliskuna noo xaqiijiyay niman dhalinyaro ah oo abaabulan ayaa damcay xoog inay ku galaan guriga gudoomiyaha Police-kii baa ka hor yimi guriga ilaalinayay oo dibadda ugu soo baxay qaar baa dhaawacan police-kii oo nabar ku yaalan taliyaha police-ka uu nala soo xidhiidhay wuxuu noo sheegay in ay qaar qabqabteen dadkii falkaa geystay ay hayaan taageerayaasheeda waxaan u sheegaynaa meel kastoo ay joogaanba inay isdejiyaan wax gudoomiyaha iyo qoyskiisii iyo madaxdii kale xisbiga meesha joogtay soo gaadhayna ma jiro khasaaro fudud buu ahaa laakiin say isku day in guriga xoog lagu galo oo nu qaadanuun markaa in la doonayo gudoomiyaha iyo wixii meesha joogaba iyo musharaxaba la wax yeeleeyo may dhicin waa laga hortagay Police-kuna wuxuu noo sheegay inuu ku daba jiraan oo raadinayaan qaar ay hayaan xoogana waanu helay dadkii loo aaninayay qaarkood waalidiintoodii baa noo yimi oo naga raali geliyay waananu ka aqbalay raali gelinta waxaananu anagu ka hor dhici mayno laakiinse arrintaasi waxaan u aragnaa arrin abaabulan oo la soo abaabulay xaqiiqadana waynu heli doonaa ciidanu ku tuhmaynaana waxa weeyaan ciidii aanu tartamaynay cid ka mid ah ayaan u tuhmaynaa laakiinse xaqiiqadeeda waxaanu ka sugaynaa anana waa raadsanay waan loo maqan yahay dad baanu dirsanay oo inamada iyo guryahoodii iyo cidda yihiin iyo qof walba ciddu ku xidhan yahay iyo taana waanu haynaa oo raadinaynaa laakiinse Police-kaanu u deynaynaa taageerayaashadana waxaan u sheegaynaa dhibaato weyn ma dhicin inay isdejiyaan xisbigu wuxuu goostay dhacdooyinka noocaas oo kala ah oo isu soo taraya oo dad badan la dhaawacay halkan lagu dhaawacay la leeyahay magaaladooyinkii dibadda qaar baa lagu dhaawacay
waxaan u sheegaynaa xisbigu wuxuu go'aansaday wax la yaalo wixii dhibaato ay tirsanayaan in dariiqa sharciga ee rasmiga ah loo maro hay'adaha amniga commissionka monitoringka dadka haye arrimahan daba socda doorashada cidda danaynaysa markaa taageerayaasha waxaan u sheegaynaa inay isdejiyaan dhibaato weyn ma dhicin musharaxii iyo qoyskiisii iyo dadkii kale mas'uuliyiintaana qofna dhibaato ma gaadhin arrintaana waxaanu leenahay dariiqay lahayd amariyaan hay'adaha sharcigu ciddii ay ku caddaatana in tallaabo sharciga laga qaado annaguna xaggeega waxaanu ku ballan qaadaynaa inaanu la shaqayno hay'adaha sharcigu wixii ay nooga baahdaan weydiiyaan dadkii goobjoogga ahaana way wareysanayaan oo kale markhaati iyaga qaadi doona iyaga baaritaanka samayn doona waxaanu u sheegaynaa inaanu gudiya dabadba inaan arrintaa la buunbuunin xisbigu wuxuu isku raacay hoggaanka xisbigu inaanu xaaladda dejinno inaan arrintaa laga falcelin taageerayaashoodu inaanay sinaba uga falcelin mas-uuliyiinta xisbiguna waxay isla qaateen dariiqa sharciga ah inay maraan waxaanu rajaynaynaa ilaahay ka baryaynaa in doorasho xora oo xalaali oo rabshadeeda inoo dhacdo somaliland sidaa danteedu ku jirtaa sidaasaan anu ku ballan qaadaynaa kana falcelin mayno dhibaatooyin badan oo la geystay baa jira iyana looyar baa jooga xafiis baanu samaynay dabagala 11 bas baa la burburiyay habeen maalintii dhaweyd dad baa dhaawacay la gaarsiiyey xafiiska guud ee ku yaala koodbuur taayiro ololayaa lagu soo tuuray waxaasoo dhan biliisku uu ka warhayaa uu raadinayaa laakiin se annagu ka falcelin mayno waxaanu qaadanay taageerayaashadan waxaanu leenahay ha ka falcelinina waxba ha u dhimin axsaabta kale sharaftooda iyo sumcaddooda iyo hantidooda midnaba ha ku tacadiyina waxaynu sheegaynaa un annagu inaanu u mari doono waxaananu axsaabta kala faraynaa min fadlakum idinkuna sidaas yaala oo taageerayaashiina sidii u dejin lahaydeen ee fulalka noocaas oo kale iyo aanay nagu soo noqnoqon lahaayeen in dee ka howlgashaan commissionkuna inuu arrimaha noocaas oo kale ah inuu ka hadlo oo wixii dhacay markuu ogaado uu dee madaxda axsaabta inta isugu yeedho isaguna tacliimaadkiisa wixii kala gudboon uu siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu